dhammaan waxaad ku soo dhawaatiin barnaamij kooban oo aan ka hadli doono dhacdooyinka cajiibka ah oo aan had iyo jeer idiin soo gudbino. Mid ka mid ah dhacdooyinkaasi cajiibka ah ayaan idinku falaqeyn doonaa barnaamijkeena tooska ah. Haatan aan gudagali doono dhacdadan ayaa idiin muuqda sawirkan. Ninkan ayaa noqday dadyoga dunida u yaabka badan kadib markii dacwadiisa ay badatay oo rikoor caadi ahayn uu jibiyay oo dhanka dacwooyinka in dad yooga uu ka dacwoodo dhammaan asxaabtiisa ayaa la leeyahay. Ninkan dhammaantood waa uu dacweeyay qalad yar oo aan waxba aan ahayn ayuu la tagayaa saldhigyada magaalooyinka uu ku nool yahay asigoona ku eedeynaya in qaladyo ay ka galeen. kiisaskiisa ayaa noqday qaar xad dhaafay iyo dacwadiisa oo mid aad u sareysan noqotay. Waxaa la sheegay qoyskiisa qaar ka mid ah xataa inuu dacweeyay oo uu yiri waxay iga galeen eedo kala duwan u soo gudbiyay. dadyo badan ayaa jira oo rikoor aan caadi ahayn sameeyay dhaqankooda iyo qaabka ay ku nool yihiin dunida. Shakhsi walba waa la daraasay ma ahan Soomaaliya oo kaliya oo wadan aan waxba daraasad ah aan qorin aanan akhrin, laakiin dadka dabeecadooda iyo kiiska aad gasho goortii aad gasho xilligeeda kale lambara ay leeyihiin. wax walba waa documenti meel yaalo oo lagu qoray isla markaasna cadeymo kugu noqon karo haddii aad tahay shakhsi eedo badan oo dadka ka dacwooda oo dacwadiisu ay tahay mid joogta ah oo aan waqti lahayn oo xilli walba ah, iyo haddii aad tahay ruux markii ugu horeeyay shakhsi ka soo dacwooda in adiga aad tahay oo markaasi soo dacwooday in kale ayaa galalka baarista lagu baaraya raad dheer oo dhankaasi ku saabsan. qof walba waxa uu leeyahay feel u furan. marka maanta aad dambi gasho waxaa ku furan feelkaasi wuxuu soconayaa ilaa iyo adiga dambiyadaada ay noqdaan kuwa saa'id ah oo maxkamadda lagu soo taagi doono. waxaa kaloo dhanka kale la fiirinayaa adiga feel kale ku furan meeqa mar ayaa laga soo dacwooday oo adiga aadan wax dacweynin. macnaha waa laba waji oo ah in adiga aad soo dacwood oo lagu soo dacweeyay ayadana waxa lagu fiirinayaa in dambigaada iyo goorta inta jeer ee adiga lagu soo dacweeyay ee laga soo cabtay. haddii aan noqoto nin dacwad badan oo dadweynaha ay soo dacweeyaan falal tuuganimo ama waxyaalo anshaxuma oo dadka kugu nool wadankaasi ama magaalada ku sugan tahay dhanka kale magaalada u guurta haddana u weecato isla sidoo kale feelkii ayaa ku horyaala gobolba kaaga horeeya kiiskaada si documentary ay soo baxaya oo adiga dambiyada aad gashay isla markaasna waxa lagu xukumayaa ama si sharci ahaan lagu qaadaa reer ay soo laalaabatay dacwadaada. taas waxay sababaysaa inaad la kulanto caqabado ah in xarig ama xabsiyo aad gasho oo aad mutaysatay waxaad ay yihiin wax cadeymo ah oo isdaba yaalo. maadaama wadankan haddii aad ka tagto dunida oo wadan kale aad ku tagto isla feelkaadii ama se galalka dambiyada lagu baaro ayaa la baarayaa isla markaasna waxaa soo baxaya dambiyada aad hore u gashay oo adigu aad geysatay ma ahan wax ciyaar ah. marka ninkan wuxuu ka mid yahay shakhsiyaalka ka yaabiyay baraha lagu baaro dacwooyinka ama galalka dhanka iyo baarista. waxa uu noqday shakhsi aad ay u sara martay asiga in uu wax dacweeyay ma ahan in asiga wax la soo dacweeyay. asiga ayaaba noqday nin dacwad mirana oo dadku aad u soo dacweeyo oo dadyo kala duwan ka soo dacwoodo. xataa waxaa la yiri qoyskiisa qaar ka mid ah oo uu soo dacweeyay. hooyadii ayaa la sheegay xataa inuu soo dacweeyay uu leeyahay wax iga gashay dambi sida ah ayaa iga gashay ayuu leeyahay. markii la baarane wax asiga laga galay ma lahan oo dacwadiisu waxay iska tahay qaar iska daciif ah oo waxba aan ahayn. booliiskii ayaa la yaaban ninkan iyo dadyo kale oo ayagana sameeyay falal kale oo ay la yaabeen qolada baarista ku hoolan. janalka Dooxa Media ayaa idin soo gudbinaya dhacdadaasi ka mid ah dhacdooyinka ugu cajiibsan ee dunida. janalkan cidii ku cusub waxaan leeyahay in subscribe aad dhahdo, like, share, comment intaba si aad ula socoto barnaamijyadan halkan ku soo gudbina waqti walba oo ah qaar kala duwan oo dhammaan aad ka faa'iidi doonto. waxaan rajeynayaa in
janalkan aad rukuma doonto gabalaalka furo doonto si barnaamijyaasi xogahaasi dhameystiran oo ah qaar ku saleysan dhanka iyo xaqiiqada in aad kala socod doonto si aad ula socoto waxaan leeyahay shuruudahaasi ku xidaaban janalka in aad ka soo gudbi doonto waxaan rajeynayaa dhammaantiinba nabadgelyo ayaan idin leeyahay waxaan idin rajeynaynaa in kulan dambe oo ay keenaan inta kulmi